madaxweynaha dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo wafdi hogaaminaya ayaa maanta soo gaaray magaalada Nairobi caasimadda wadankan Kenya. wafdiga madaxweyne Shariif ayaa waxaa kamid ah qaar kamid ah golaha wasiirada xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya oo kamid yihiin wasiirada wasaaradaha gaashaandhigga, arrimaha gudaha iyo ganacsiga. ujeedada safarka madaxweynaha Soomaaliya ayaa ahayd ka qaybgalka shir saddex geesood ah oo uu la yeelanayay madaxweynayaasha Kenya Mwai Kibaki iyo Uganda Yoweri Museveni. shir saacado kooban qaatay oo yeesheen saddexda madaxweyne ayaa waxaa ugu dambeyn laga soo saaray 7 qodob oo waxyaabihii isku afgarteen madaxda kaas oo saxaafadda ajnabiga uu akhriyay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Moses Wetangula. Xuseen Carab Ciise waa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo la hadlay shirka kadib qaar kamid ah saxaafadda Soomaalida ayaa si kooban u sharaxay waxyaabihii looga wada hadlay shirka yeesheen saddexda madaxweyne. wixii ka soo baxay shirkii maanta ka dhacay dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweynaha Kenya Kibaki iyo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni. runtii wuxuu ahaa shir adkeynaya communique hore soo baxay 18 October iyo kii ku xigay lagu qabtay Addis Ababa ee IGAD ku shirtay kii ugu dambeeyay ee wafdigii Cabdiwali ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wafdigii hogaaminayay ee runtii lagu adkeynayay wada shaqaysiga iyo runtii in la iska Kenya iyo Soomaaliya iska taageeraan la dagaalanka al-shabaab. marka maanta waxay ahayd mid madaxweynayaashu ay ka wada hadlayaan wixii mugdi ku jirana meesha laga saarayay su'aalo badan baa la isweydiiyay. ugu muhiimsanna waxay ahayd runtii in la dagaalanka al-shabaab mid laga yahay regionka oo dhan uu khatar ku yahay استراتيجي marka lagu la dagaalami lahaa in miska la soo saaro oo wax la isku og yahay lagu hawlgalo ciidanku hawlgalo marka taa waa la isku fahmay in leaderka uu qaato ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed runtii iyagoo taageerayaan oo ina la shaqeynayaan walaalahooda Kenya taana waa la isku raacay. marka runtii iyo in international community runtii lala hadlo si looga hadlo inay caawiyaan wixii macaawinaa ay keeni karaan xagga humanitarian iyo xagga in operation ka support gareeyaan. safarku madaxweyne Shariif ku yimid wadankan Kenya ayaa kiisii ugu horeeyay tan iyo markii ciidanka Kenya gudaha u galeen wadanka Soomaaliya 16 bishii tagtay October taasoo waji cusub u yeeshay siyaasadda iyo dhaqdhaqaaqa Geeska Afrika. Ibrahim Gedo Cawaale, S24 TV, Nairobi.